بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملكسة جوجتان جمعة موناكسن kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo ku eegayna wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya dagaalka Syria gaar ahaan xoogii ugu weynaa ee laga sugayay Bashar al-Assad inuu ka badbaadin karo marxaladan waa Ruushka wargeyska Bloomberg ee Mareykanka ka soo baxa ayaa isagoo xiganaya ila ku dhow aqalka Kremlin-ka ee laga aramiyo Ruushka wuxuu cadeeyay Ruushku inuusan lahayn qorshe uu ku badbaadin karo madaxweynaha Syria Bashar al-Assad iyadoo loo eegayo baalid howlgallada dardarka leh ee xoogaga mucaaradka hubeysan ay gacanta ku dhigayaan goobo muhiim ah oo ka tirsan Syria arrintan ayaa timid wax urun kadib markii safaaradda Ruushka ay ku taala caasimadda Syria Dimashq ay ku codsatay muwaadiniinta Ruushka inay isaga baxaan Syria si degdeg leh xaaladda ka sii daraysa awgeed qoraalka ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in si caadi ah u sii wadi doonto shaqadeeda balse waxa lagu wargeliyay muwaadiniinta inay si degdeg leh uga baxaan Syria dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in xasilinta xaaladda Syria aysan ahayn arrin sahlan wuxuu ku tilmaamay waxa dhacaya ciyaar adag oo ay ka qayb qaadanayaan buuri dhinacyo kala duwan hadalkan ayaa tilmaamay in laga siinayay inay jiraan waxyaabo badan oo daaha gadaashiisa ka socda Ruushkana wuxuu arkayaa hadda inaysan suuragal u ahayn inuu badbaadiyo Bashar al-Assad si lamida badbaadadii 2016 xilli mucaaradku ay ku dhawaayeen inay xukunka ka ridaan Bashar al-Assadna markan wuxuu u muuqdaa calankii dhacay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka waxa kale uu tilmaamay in uu kala hadlay dhigiisa Turkiga iyo Iran arrimo ku saabsan xaaladda Syria wuxuu intaa ku daray in saddexda wadan ay isku afgarteen inay isku dayaan inay kulmaan toddobaadkan si warajo ka muujiyay in kulanka uu ka dhici doono magaalada Doha Turkiga Ruushka iyo Iran ayaa si joogto ah u yeeshay wadahadallo saddex geesood ah oo ku saabsan mustaqbalka Syria iyadoo loo eegayo qaabka shirarka Astana shirarkii ka dhacay Astana waxay u ahaayeen mucaaradka Syria ee hadda ku dhow in ay qabsadaan guud ahaan Syria kana tuuraan xukunka Bashar al-Assad shirar badbaado u leh Turkiguna wuxuu gacan ku siiyay mucaaradka hadda ku dhow in Afgambiyaan Assad in nafsadooda uu badbaadiyo waxa la xasuustaa in hogaamiyaha sare ee mucaaradka Syria waa Abu Muhammad al-Jawlani oo hadda hogaaminaya howlgalladan la yaab kale inuu waqtiga ku dhawaay in gacanta lagu dhigo balse dadaalada Turkiga iyo inuu Ruushka ku qanciyay in wada xaajido la galo waxay dhalayeen in mucaaradku ay isugu tagaan magaalada Idlib taasoo awood u siisay inay markale awoodooda u midayaan sidii ay Assad u ridi lahaayeen haddana wax walba waxay u dhacayaan si la yaab leh ilaa xoogagii taageerayay Assad ay gacanta taagayaan oo ay sheegayaan in wax halkan ka dhacay yihiin wax tabartooda ka weyn Ruushka oo ahaa xooga ugu weyn ee laga filanayay walow Ruushku ku jiro xaalad dagaal oo muddo 3 sano qaadatay taas oo burburisay awoodiisii sidoo kalena wax badan u dhintay kaydkiisa ciidan iyo hubba ayaa haddana waxa la filan karay inuu ugu yaraan sameyn karo ficilo ka hortaga talooyin qorsheyn iyo in uu Assad ka caawiyo sidii markale xukunka loogu hayn lahaa balse hadda sida laga maqlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov hadallada uu soo bandhigay la xiriira in ciyaar adag ay ka dhacayso gudaha Syria ayna ka qayb qaadanayaan dhinacyo badan waxay tilmaan ka bixinaysaa in waxa ka soconaya Syria mudulaanka mucaaradka inuu yahay dulaan istiraatiiji oo awoodo badan salka la gali kara taasna ay dib u dhigayso Ruushka sabab la xiriirta inuu arkiyo Ruushka inuu si nabad ku badbaadi karin Bashar al-Assad shabakada Bloomberg warbixinteeda ay ku cadeysanay in Ruushku uusan hadda hayn wax qorshe uu ku badbaadin karo Assadna taasi waa wax qoos ah maqalka dhinacyada la socday Assad ee hadalkana sidoo kale waxay ku ridaysaa argagax labaad sabab la xiriirta in hadda waxa laga hadlayay ay tahay laguna gorgortamay magaalada Dimashq kadib markii awoodooda dhan mucaaradku ay isugu keeneen magaalada Homs taas oo qabsashadeeda awood u siinaysa inay sidoo kalena kala xiraan dhulka xeebaha ku yaala qoyska Bashar al-Assad ay degan yihiin iyo caasimadda Dimashq taasina waxay xaalad go'doon gelinaysaa Dimashq inta oo kaliya ma ahane Dimashq waxay la kulmaysaa weerar dhinacyo kala duwan sida waxa sheegay kanaalka Raber ee xiriirka la leh wasaaradda difaaca Ruushka kaasoo sheegay in xaaladii ugu xumay taariikhda uu maray Bashar al-Assad sabab la xiriirta in xafiiskiisa iyo caasimadda Dimashq ay la kulmayaan weerar jihooyin kala duwan oo ka imaanaya koonfurta bartamaha waqooyiga iyo bariga tani waxay la xiriirtaa kadib markii dhaqdhaqaaq xoog leh oo mucaaradka uu ka bilaabmay dhinaca koonfurta Syria xadka la leh Jordan halkaas oo mucaaradku ay la wareegeen deegaano badan saldhigyo iyo hub far badan taasina waxay u suuragelinaysaa in weerar xoog leh looga soo qaadi karo Dimashq halkii laga filanayay bartamaha iyo ciidanka Homs ku sugan inay soo weeraraan in weeraro uga imaan karaan dhinaca koonfureed taas oo jahawareer xoog la gelinaysa ciidanka nidaamka Bashar al-Assad sidoo kale koonfurta Syria hadda waxa laga soo sheegayaa in dhaqdhaqaaqyada mucaaradku ay isku soo dhiibeen boqolaal ka tirsan ciidamada nidaamka Assad sidoo kalena mucaaradka waxa ay gacanta ku dhigeen hub far badan oo taangiyo diyaarado
iyo saldhigyada leh. waxay kaloo si dhammaystiran u maamulayaan isgoyska nasiib ee isku xira Jordan iyo Syria. waxa walba dhacaya hadda waxay u muuqanayaan wax la yaab leh, balse mucaaradku hadda waxay ku dhow yihiin natiijadoodii ugu dambeysay inay dhaqan geliyaan. iyadoo waraysi uu bixiyay hogaamiyaha sare ee mucaaradka Abu Mohammed al-Jawlani uu si cad u sheegay in ujeedada howlgalkooda iyo duufaantan socotay inay tahay in la isugu geeyo Dimashq xukunkana laga rido Bashar al-Assad, isagoo markaa sheegay in dadka Syria ay joogaan waqtigii heli lahaayeen xukun xor ah, cadaalad ah oo sharaf ay ugu dhex noolaadaan dhulkooda. wax walba oo gobol falaaw dhacayna wuxuu sheegay meesha in laga saari doono dadka Syriana la midayn doono. waxaa ka horeysay war-saxaafadeed shalay ka soo baxay qolka howlgelinta mucaaradka oo lagu sheegay in loo baahan yahay in calaawiyiinta uu ka soo jeedo Bashar al-Assad ay iska dhaqaan gobol-falladii ay gacmahooda ku geysteen muddadii maamulka Bashar al-Assad iyo aabihiisa ka horreeyaba ay jireen. taas beddelkeedana loo baahan yahay inay kocdoonka ka qayb qaataan oo Bashar meesha ka ridaan. tani waxay ahayd hadal loo soo bandhigayay calaawiyiinta ku aruursan Dimashq iyo gobolada xeebaha, kuwaasoo hadda wajahaya xaalad aad u daran. waa dadka ugu tirada yar bulsho ahaan ee ku nool Syria, balse waxay fursad u heleen inay maamulaan awoodda Syria. ma cadda haddii marka xukunka laga tuuro Assad ay la kulmi karaan cawaaqibka waxyaabaha Bashar iyo Assadba ay ka geysteen Syria, iyagoona awooddii oo dhan isugu geeyay calaawiyiinta iyo qoyska reer Assad inay xukumaan. taasina waxay horseeday burbur xoog leh oo ku dhacay qaybihii kale ee bulshooyinka oo in ka badan 90% ay gaarsiisan yihiin dadka Sunniga ah ee isugu jira Carabta iyo Kurdiyiinta. howlgal kaloo la yaab leh oo si dardar leh u socda awoodna wuxuu ka soconayaa bariga Syria, halkaas oo Kurdiyiintu ay hadda go'aamiyeen inay qayb ka noqdaan howlgalka ka hortagga gardarrada ay hogaaminayaan kooxda Hayat Tahrir al-Sham ee hogaamiyo Abu Mohammed al-Jawlani. labada dhinac waxaa la sheegay hadda inuu wadxaajood u socdo, taasoo ka dhigaysa howlgalkii ugu horreeyay oo si midaysan ay uga qayb qaadanayaan Carabta iyo Kurdiyiinta oo la rabeen xukunka looga rido Bashar al-Assad. awooddu hadda waxay jirtaa mucaaradka, gaar ahaan dhinacyada Carabta uu hogaaminayo Abu Mohammed al-Jawlani. waraysi uu siiyay CNN oo la baahiyayna wuxuu ku sheegay in waxyaabaha hadda guusha weyn u horseedaya ay tahay inay mideeyeen afkaartii, ficiladii iyo howlgalkii dhammaan kooxihii ka jiray Syria. taasina ay sahashay in hal qol la isugu keeno howlgalka, amarku hal qof uu ka baxo, sidoo kalena istiraatiijiyadda iyo taageeradu ay hal goob ka timaado. taasi wuxuu sheegay inay fursad u siisay sidoo kale magaalooyinka ay mucaaradku qabsadeen in si dhaqso leh nidaamyo shacaba laga howlgeliyo, taas oo si degdeg ah u soo celinaysa awooddii shacabka iyo nidaamyadii dawliga ah ee loo baahnaa. magaalada Xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Syria oo arbacadii hore ay la wareegeen ayaa hadda noqotay magaalo nidaam dhammaystiran loo sameeyay muddo yar gudaheed. sidoo kalena waxaa taageero weyn dhinaca bini'aadanimada magaaladan ugu soo gurmatay Idlib oo halka ay ka yimaadeen mucaaradku. waxaa la keenay cunno iyo gargaar kale oo dhinaca bini'aadanimada daweyn ay ku jiraan, kuwaas oo loogu daryeelayay dadka Xalab oo muddo 13 sano ku hoos noolaa nidaamka burburiyay noloshooda ee Assad. tani waxay ku qasabtay magaalooyinka kale oo Xama ka mid ahayd iyo dhammaan tuulooyinka ay qabseen dadku inay banaanka u soo baxaan oo si weyn ay u soo dhaweeyaan. kacdoonkaas weyn ee ka dhacay waqooyiga iyo bartamaha Syria wuxuu sabab u noqday inay sidoo kale dadkii ku noolaa koonfurta Syria ay kacaan oo ay iyagu weeraraan saldhigyada. dad rayid oo dhalinyaro u badan ayaa la arkayay iyagoo weeraraya, iyagoo hub iyo wax kala midna wadan, balse awoodooda qaylinaya, dhagxaan ku tuuraya, burburinayana saldhigyada nidaamka Bashar al-Assad, taasoo keentay in si degdeg ah halka uga baxsadaan, kuwa kalena ay isu soo dhiibaan. mucaaradku sidoo kale wuxuu ku guuleystay in dadka rayidka ah la dhex galo oo baahiyahooda wax laga qabto. waxaa la arkayay magaalada Xalab oo ah magaalada ganacsi ee Syria sidoo kale in ay dib u dhis ku sameeyeen wadooyinkii ku burburay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaaladaas. sidoo kale waxaa awood la siiyay nidaamkii korontada oo la dayactiray goobihii korontada ee halaysnaa. tanna waxay sidoo kale sahasheen dad badan ay magaaladooda ku soo laabtaan, magaaladuna isku bedesho magaalo nidaam leh. waxaana laga saaray ciidamadii qaabka militariga u hubaysnaa, kuwaasoo saldhigyo gaara la dhigay. magaaladan waxaa laga howlgeliyay booliis, ciidanka iyo qaybihii kale ee ciidamada ay ku jiraan kuwa dabdamiska, kuwa wadooyinka iyo kuwa gurmadka degdega ahba. sidoo kale isbitaalada ayaa dib u dayactir ay ku sameeyeen, taasina waxay keentay inay taageero weyn helaan. tan iyo November 27-deedii xogaga mucaaradka Syria waxay 29kii isla bishaas dagaal ay kula jireen ciidamada Bashar al-Assad oo ay ka soo bilaabeen dhinaca waqooyi galbeed ay ku gaareen deegaan aad muhiim ah. ilaa maanta ay ku sugan yihiin magaalada Xama albaabkeeda, halkaas oo loo arko in aysan ku joogsan doonin
si dhaqso ah ay ugu soo jihaysan doonaan dhinaca Dimashq. Balse warbixintan waxaan diiradda ku saaraynay waxyaabaha ku dhacay taageeradii uu Asad filayay gaar ahaan Ruushku si cad hadda sida laga soo xigtay aqalka Kremlin-ka ama xafiiska Putin ma jiro wax u qorshaysan oo ah in uu badbaadiyo maamulka Bashar al-Assad. taasina waxay dardar gelinaysaa suurtagalnimada in xogaga mucaaradku si dhaqso ah meesha uga saari karaan Bashar al-Assad. warkaas oo taagan ayaa Ruushkan wuxuu dadkiisa ugu baqay in laga saaro Syria. waxaa xigtay in shabakadaha wararka ee ku dhow wasaaradda difaaca Ruushkana ay si cad u sheegeen in hadda wax walba ay faraha ka baxeen Bashar al-Assad uu ku jiro waqtigiisa ugu dambeeyay. warbixinta ay baahisay shabakada ama kanaalka Telegramka ee ku dhow wasaaradda difaaca ee Ryber waxaa si cad loogu muujiyay in waxa ugu dambeeyay ee Dimashq hadda ay sugayso inay tahay soo gelitaanka Abu Muhammad al-Jawlani, taasi oo ka dhigan in la riday nidaamkii Bashar al-Assad. Ruushkan uusan hadda hayn wax qorshe ah. intaa waxaa dheer waxaa maanta banaanka u soo baxay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan muddo dheer oo warbaahintu ay sheegaysa waxa ka dhacaya Syria inay dhinaca Turkiga laga soo abaabulay. wuxuuna Erdogan si cad u sheegay inay mucaaradku qabsadeen Hama, Homs, sidoo kalena ay ku socdaan biirin una jihaysan yihiin magaalada Dimashq. taas waxaa xigtay inuu sidoo kalena sheegay inay la hadleen Bashar al-Assad oo uu ka soo jawaabi waayay hadalkooda. dabcan tani diblomaasi ahaan waxa loo qaadanayaa in Bashar al-Assad uu arkayo Turkigu waxa uu soo bandhigay kaliya inay tahay xukunka ka tago oo mucaaradku ku wareejiyo si uga baaqsado dagaal. balse hadda hawlgalka la mideeyay ee mucaaradka wuxuu guul weyn u horseedayaa inay si degdeg leh xukunka uga ridi karaan Bashar al-Assad, sababtoo ah jihooyinka kala duwan ee weerarka kala kulmaysa Dimashq way ku adag tahay Bashar al-Assad iyo nidaamkiisaba inay ka hortagaan xogagan mucaaradka sidoo kalena taageerada ka helaya bulshada in ay ka badbaadiyaan soo gelitaanka Dimashq. guul weyn ayayna mucaaradku hadda ku taamayaan. waxaa hadda la isweydiinaya kaliya waa sidee noqon karaa maamulka Syria, maxay tahay mustaqbalka ka dambeeya Bashar al-Assad ee Syria ay wajahayso xilli dalkaas oo mar kamid ah dalalkii ugu nolosha wanaagsanaa dhinaca waxbarasho, caafimaad iyo horumarba dalalka bariga dhexe inuu si dhaqso leh muddo 13 sano u noqday dalalka ugu nolosha xun, ugu barakaca badan, uguna dhimashada badan. dhibaatooyinka waaweyn oo u baahan yihiin dadka reer Syria in laga dhayo sidee ugu guuleysan karaa Abu Muhammad al-Jawlani oo hadda isku muujinaya inuu yahay hogaamiyaha bedelaya Assad haddii xukunka laga rido. walow si cad waraysi uu siiyay si inuu ugu sheegay in uu doonayo in xukunka ku soo celiyo dadka rayidka, balse wuxuu cadeeyay inuu rabo inuu wax walba ay hal hoggaan ku dhacan, taas oo sheegay inay tahay wax hadda guusha looga gaarayo, balse nidaam baarlamaani ayuu sheegay wadanka inuu yeelan doono, taasi oo ka dhigan inuu noqon doono hogaamiye dhameystiran ama si la mid ah hogaamiyaha sare nidaamka yaala Iran oo kale. wax walba si degdeg leh ay isku bedelayaan isla waqti kastana waxaad halkan bartan YouTube Iman Jaamac ka heli doontaa wararkii ugu dambeeyay, macluumaad iyo falanqeynba. si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee la socda, fadlan ku soo biir, sidoo kalena saaxiibada la wadaag, ra'yigaaga noogu reeb qaybta falcelinta. intaynu mar kale kulmayno sidaas iyo amaana Allah, caafimaad qab iyo nabad qab.